mom ereyga mom M-O-M waxaan rabaa tactic inaad ku isticmaashaan ee aad ka dhigataan erey aad wax ku xasuusan kartaan. ereygan waxaa isticmaala dadka psychologiga ee psychiatric tusaalahan qofka markuu qaliin maskaxda ka galo ee wax uu xasuusan waayo ayaa lagu tababaraa inuu wax kasta ku xasuustiisa u soo noqoto. haddii maanta ay xasuusta kugu adag tahay ama waxyaalihii aad soo martay aad xasuusan karin maanta waxaad samaysay biri aad xasuusan karin wixii shalay aad samaysay xasuusan karin tacticadan isticmaal. number 1 M waxaa la yiraahdaa motivation micnaheeda waxaa la yiraahdaa dhiiragelin. isku dhiirageli inaad wax xasuusan kartid. marka aad adiga isku dhiiragelisid maskaxda waa og tahay markaas inay wax qaban karto, awood ay yeelanaysaa, tabar ay yeelanaysaa, waad xasuusanaysaa. soo mar walba waxa aad doonaysid inaad xasuusatid ama xasuustaada ay dib kugu soo noqoto maskaxdaada isku dhiirageli oo waxaad tiraahdaa waan xasuusan karayaa. quraanka markaad akhrinayso kale waxaad tiraahdaa maanta ayadan waan akhrinayaa insha Allah waan xasuusanayaa biri marka macalinka aan fariisto. ereyga oo wuxuu u taagan yahay observation waxaa la dhahaa qiimeyn inaad ku samaysid waxaad baranaysid ama waxaad doontid inaad xifdisid ama inaad xasuusata aad doonaysid qiimeyn ku samee. dib ugu noqo waxaani qor marka hore dan ku noqo mar kale dan isku day in adigoo observe gareynayo ama qiimeyn ku sameynayo ilaa intee xasuusan kartaa maxaa u eg aad ku xasuusan kartaa maxaa u soo dhow aad ku xasuusan kartaa. famisa erey waxaa jiro dhowr meel isaga kuwaasoo kale soo qaado soo observe garee. sidoo kale xarafka M ee ugu dambeeya mom waxaa la yiraahdaa mechanic waxaa laga wadaa maskaxda inaad ku celcelisid wixii oo aad tiraahdid dhowr mar. tusaalo kale waxaad doonaysaa qof magaciisa inaad xasuusatid. qofkan marka uu ku yiraahdo magaciisa aad la kulantay waxaad leedahay magacaa. qofku wuxuu ku yiraahdaa waxaa la yiraahdaa hebel. isku day hebel qofka markuu ku dhahay maskaxdaada inay gudaha u leqdo oo aad tiraahdo hebel wajigiisana aad isku fiirisid waa mechanic. sidoo kale waxyaalaha aad rabtid inaad xasuusatid sida quraanka kale ama aayada aad xifdinayso kale ama waxa kale noocay doonaba ha noqoto aad xifdinaysid sidoo kale ku celceli waxaad tiraahdaa adoo is dhiirigelinayo motivationka hore isticmaalayo sidoo kale adoo observation sameynayo inaad ku celcelis oo tiraahdo maskaxda dib u laqsiisid sida canuufta biyaha ama wax la cabay loo laqa ayaad u laqaysaa markaad mechanic ahaan aad isticmaashid wixii waad xasuusan karaysaa. waxaan rajaynayaa tacticadani inay ku anfacday. haddii ku anfacday fadlan sii share garee muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.